بسم الله ومحي سببت لو دلي سيد محمد عبد الله حسن iyo sheekh xasan barsane iyo rag la midka ah laakiin xukunka loogu dhiibay SYL taas jawaabteeda adiga ayaan ka rabaa laakiin waxa jirta su'aal kale oo dhahaysa waa maxay xurriyadda la gaaray 60 sano kadib aanan dooro karin madaxweyne ilaa mid ay gumeysteen raali ka yihiin haddii gumeysteen wali doonayaan in ay noo meeriyaan wixii qaldan iyo wixii saxan haddii wali gumeysteen ay doonayaan inay nagu qasbaan qaabka dawladnimo ee aan qaadanayno oo aan isku xukumayno haddii ay wali nagu qasbayaan qaabka dhaqaale ee dawladdeenu ay qaadanayso haddii ay wali gumeysteen nagu leeyihiin deyn ciidda ka badan oo aanan aqoon waqti aan qaadanay cidda qaadatay iyo waxa lagu qabtay haddii ay wali gumeysteen cuna qabateynayaan haddii aan hadalkooda diidno haddii aan wali lacagtooda wax ku kala iibsano ayna wali lacagtooda ka qaalisan tahay lacagteena haddii ay magacyo noo kala bixinayaan xataa annagii aanan aqoon waxa ay yihiin haddii hubka ay ayagu sameeyaan ee wadankeena ku soo daadgureynayaan haddii ay wali manhajyadii waxbarashada ayagu noo dejinayaan haddii waxbarashadaada 1000 sano haddii aad waxbarata aysan waxba ka jirin ilaa aad raacdo nidaam ee ayagu raalli ka yihiin haddii ay ayagu noo sameeyeen xuduudaha iyo magacyada magaalada iyo qaaradaha magacyadooda iyo wax walba haddii aanan ismaamuli karin ama aynan go'i karin ayaga oo aanna aqoonsan haddii aanan waxba aasaasi karin ilaa aan ayaga cabir ka qaadano haddii ay nagu fangaraynayaan jabhado iyo hogaamiye kooxeedyo haddii ninkii aan jecelnahay laakiin ayagu ay necab yihiin ay dilayaan haddii ay diinteenna u kala saarayaan qaybo qaldan iyo qaybo saxan haddii ay annagii noo kala saarayaan xag jir dhexdhexaad iyo waxyaabo la mid ah haddii ay jecel yihiin inay dhaqdhaqaaqeena koontaroolaan meel kasta oo aan aadno madaxda xun haddii ay ayagu jecel yihiin ay nagu qasbayaan inayna xukumaan intay doonayaan haddii baasaboorkeena haddii ay sa aqoosan aanan safri karin xataa haddii aadan buug qori karin ilaa aad qaadato wax loo yaqaano ISBN ayaga ayaa noo qoonteeyey furaha nambarka 252 haddii ay ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah weli noo soo dirayaan ayna ayagu lacagahooda bixinayaan sida amisom oo kale haddii dhulkeena ciday doonayaan ay siinayaan sida Ogaadeniya iyo NFD oo kale haddii ay nagu qasbayaan in aan dhul siino dad aanan isku diin ahayn ama inay dhulkeena ka dhistaan kaniisado haddii weli idaacadahoodii ay noo yihiin isha kali ah ee macluumaadka aan ka helno sida BBC-da iyo VOA haddii badaheena ay waxay doonayaan ka samayn karaan laakiin annagu baddooda aanan cag dhigi karin haddii ay nagu qasbayaan inaan xubin ka noqono ururo iyo hay-ado aan wax dan aan nooga xirnayn haddii hubka ay ayagu soo naceen ay naga iibinayaan ayaguna ay haystaan midka ugu casrisan oo ugu dambeeyey haddii ay nagu maamulayaan internetka isgaarsiinta daawada gaadiidka iyo kuwa aana xasuusan ka fikir cariiriga lagu hayo beeraleydeenna iyo kheyraadkeena oo la iska guranayo annaga oo aan xataa wax war ah ka hayn waxaa la sheegaa in calanka Soomaaliya si toos ah looga soo koobiyey calanka qaramada midoobay taas oo muujinaysa in hal abuurka ragga noogu horeeya oo aad u liito waxaa la ogyahay inay SYL ku qaadatay 17 sano in loo tababaro xilkaas kadibna lagu wareejiyo kadib markii ay ka soo baxeen shuruudihii loo dhigay iyo ballamadii lala galay haddii ay wadamadooda naga mamnuuci karaan laakiin wadankeena ay iska soo galayaan xilli alle xilligay doonaan ayna ku leeyihiin saldhigyada ugu waaweyn haddii ay dilayaan oo duqeynayaan dad iyo duuniyo laakiin cid su'aal iska weydiinaysa aysan jirin maxaa loo dilay haddii ay kheyraadkeena iska guranayaan sida macdanta kalluunka dhuxusha xoolo iyo nooc ugaar dalag ayagoo weliba noogu soo gambanayo magacyo hay-ado iyo ururo laakiin cid koontaroolsha aysan jirin haddii ay noo deji karaan shuruuc ay ku sheegeen caalami oo aysan ayagu raacin laakiin annaga nagu qasbayaan inaan raacno oo aanan diidi karin sidoo kale ay noo samayn karaan maxkamada ay ku sheegaan caalami oo lagu maxkamadeeyo annaga oo ayaga aan qabanin qaramada midoobay midowga Yurub bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka beesha caalamka wadamada deeqda bixiya hay-adaha xuquuqul insaanka wadamada veto-ga leh golaha ammaanka liiskaanu dhammaad ma leh waa lagu daalayaa haddaba arrintu hadday sidaas tahay waa maxay xorriyadda la helay ma iska dabaaldegnaa sanad walba ma waxaan dhahnaa 1 Luuliyo markaas baan mashxaradnaa annaga oo waxa aan haysanay ay yihiin keli ah dhaan dabalgaalle oo aanan haysan wax xorriyad ah